kuwani waa sagaalka buunde ugu yaabka badan adduunka ee aan rumaysan doonin inay jiraan. Number 9 Chanchaya Glass Bridge China. Buundadan waxay ku taalaa Chanchaya Grand Canyon ee gobolka Hunan. Waa buundo muraayadeeda hoosteeda laga arki karo dhulka ee ugu dheer uguna sareysa dunida. Markaad ku socoto waxaa si cad u arkaysaa dhinaca hoose taasoo dalxiisayaasha siisa dareen xiiso iyo cabsi isku jira. Buundadu waxay u adkeysan kartaa dabaylaha xooggan iyo dhulgariirka taasoo ugu wacan tahay dhismaheeda adag ee laga sameeyay iyo adkeysiga muraayada. Number 8 Hussein Hanging Bridge Pakistan. buundadan waxay ku taalaa waqooyiga Pakistan waxaana lagu yaqaan khatarta ay leedahay. Tirar badan ayaa ka maqan xariguna si xoog leh ayuu u lulmaa markaad marayso. Waxay dul martaa webiga Hunza waxaana maalin kasta isticmaala dadka deegaanka si ay u gudbaan dhulka adag ee halkaas yaala. Inkastoo ay u muuqato mid duug ah oo jabaysa haddana wali waa buundada ugu muhiimsan ee deegaanka u adeegsadaan nolol maalmeedkooda. Number 7 Sidu River Bridge China. buundadan waxay ku taalaa gobolka Hubei waxayna ka gudubtaa Sidu River Gorge. waxaa loo yaqaanaa buundada ugu sareysa dunida marka la eego dheerarka dhulka ilaa meesha lagu socdo. markaad dul istaagto waxaad arki kartaa muuqaal cajiib ah oo ah buuraha fiiqan iyo webiga hoos ka socda. dhismaha buundadan wuxuu qaatay in ka badan 10 sano waxaana loo adeegsaday farsamooyin injineernimo aad u horumarsan. Number 6 Golden Bridge Vietnam. buundadan quruxda badan waxay ku taalaa Bana Hills meel u dhow magaalada Da Nang. waxay caan ku tahay labada gacmood oo waaweyn oo dhagaxa ah oo haya buundada ay dadku ku socdaan taasoo ka dhigaysa muuqaal runtii la yaab leh. markaad ku socoto waxaad arki doontaa buuraha quruxda badan iyo dhirta cagaaran ee ku hareeraysan taasoo ku abuuraysa dareen gooni ah oo weliba cajiib ah. qashada gaarka ee buundadan ayaa ka dhigtay meel aad u caan ah oo ay booqdaan dalxiisayaasha dunida oo dhan. Number 5 Ishima Ohashi Bridge Japan. buundadan waxay caan ku tahay jirada aadka u sareysa ee ka dhigta inay u ekaato sidii roller coaster. naqshadan oo kale waxaa loo sameeyay si markabadu ay uga gudbi karaan hoosteeda maadaama buundada ay u baahan tahay Lake Nakomi. dad badan ayaa ka baqa markay arkaan muuqaalkeeda waxayna u bixiyeen magaca roller coaster bridge laakiin dab ahaantii waa buundo aad u ammaan ah oo si caadi ah loo maro maalin kasta. Number 4 Bamboo Bridge Cambodia. buundadan oo ka samaysan bamboo waxay ka gudubtaa wadiga Mekong ee Kampong Cham. waa buundo xilliyeed taasoo macnaheedu yahay waa buundo sanad kasta dib loo dhiso marka jilaalku yimaado iyadoo la adeegsanayo bamboo iyo agab dabiici ah. inkastoo ay tahay buundo ku meel gaar ah haddana waxay dadka deegaankan u noqotay waddo muhiim ah oo u dhaxaysa dhulka weyn ee Carbon Island. marka xilliga roobka yimaado oo biyo badan kacaan buundadu waa la kala furfuraa sanad kasta dibna waa loo dhisaa. tani waxay muujinaysaa abuurkii adkeysiga bulshada deegaanka. Number 3 Langkawi Sky Bridge Malaysia. buundadan waxay ku taalaa Langkawi iyadoo 660 mitir ka sareysa heerka badda. waxay bixisaa muuqaal ballaaran oo cajiib ah oo ka mid ah kaymaha roobka iyo jasiiradda ku hareeraysan. waxay ku taagan tahay hal tir oo kaliya waxaana loo sameeyay inay si qurux badan ugu leexato buuraha dhexdeeda. tani waxay dalxiisayaasha siisaa khibrad u dhaxaysa farxad iyo cabsi isku jira. naqshadan qalooca ah ee buundadan ayaa ka caawisa inay u adkaysato dabaylaha xooggan iyo dhaqdhaqaaqyada dhulgariirka. Number 2 Royal George Bridge USA. buundadan waxay ka gudubtaa webiga Arkansas meel u dhow Canyon City Colorado. waa mid ka mid ah buundooyinka suspensionka ugu sarreeya dunida iyadoo bixisa muuqaal cabsi ah oo ka mid ah canyonka fiiqan ee hoostiisa. waxaa la dhisay in ka badan 100 sano ka hor. tanina waxay ka dhigtay mid ka mid ah meelaha ugu caansan Colorado iyadoo soo jiidata malaayiin dalxiisayaal ah sanad kasta. Number 2 Storsisand Bridge Norway. buundadan waxay ku taalaa Atlantic Ocean Road ee Norway. waxay caan ku tahay muuqaalkeeda la yaab kale iyadoo u muuqata inay si aad ah u leexanayso bartankeeda taasoo darawallada jahwareerisa waxayna darawallada siisaa dareen ah inay ka dul dhacayso buuro sida meermeerkii Boosaasood. buundadan waxaa badanaa loogu yaraa Drunk Bridge sababtoo ah qaabkeeda aan caadiga ahayn ee jahwareerka ah. haddaba daawade ma ku dhiiran lahayd mid ka mid ah buundooyinkan inaad marto midees ayaa ku cajibsiin buundooyinkan.